gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee Iwaada Sheikh Aadan Xasan Siciid oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo isuduwaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo mas'uuliyiinta laamaha booliska iyo asluubta ayaa si wada jira xadhiga uga jaray xarunta daryeelka caafimaadka degdega ah oo ay hay'adda khayriga ah ee Iwaada ka hirgelisay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco oo aan lahayn goobtaasi markii hore waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheikh Aadan Xasan Siciid isagoo faahfaahin ka bixiyay xaruntan ay u dhiseen cisbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana kamid ah hadaladiisa sidatan walaalayaal maanta waxaynu joognaa furitaankii meeshan hospitaalka weyn ee Burco trauma care iyo under safe unit oo loogu talagalay ma garanaysaa inay dadka dhaawaca khatarta qaba inay lagu daweeyo oo ay ka faa'iideystaan taasoo hore aanu gobolku aanu u lahayn iyo gobolada oo dhami oo markay baahi timaado ilaa Hargeysa aynu la qaban jirnay marka waa ilaahay mahadi maanta haddii aynu maanta furitaankiisii aynu meesha quruxda badan ee ma garanaysaa ay dhaawac indan kiniyo dadkeena xanuunsanaya lagu daweynayo in ilaahay ma garanaysaa uu inoo ma garanaysaa ogolaaday inaan hirgelino waxa weeyaan anigoo ka mas'uula ma garanaysaa hay'adda Iwaada wuxuu ka mid yahay mashaariicdii aan wadanka ka wadnay oo mashaariic fara badan saad nooga barateen ayaa socda marka kan waa qayb ka mid ah ma garanaysaa qaybtii ma garanaysaa oo caafimaadka ah weeyaan barakallahu fiikum wa jazaakallahu khayran halkana waxayna la jooga madaxdii gobolka oo dhan baa inala jooga iyo ma garanaysaa qaybtii belayska iyo kulli waa la wada dhan yahay iyo garsoorkii aad iyo aad baan martidiinana idinku mahadnaqaya ka soo qaybgalka iyo xariga jaristan aad nala jari doontaan xarigan meeshan waxa la sheegay in dad aad u fara badan ay ka faa'iideysan karaan maanta ba beeshinadii ugu horeeyay hadda sariir joogeen oo way soo galeen oo lagu daweeyay marka waa ilaahay mahadi subhanahu wa ta'ala gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo isuduwaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay hay'adda khayriga ee Iwaada iyo Sheikh Aadan Xasan Siciid oo dhisay qaybtan cusub ee daryeelka caafimaadka degdega ah waxaana kamid ahaa hadaladoodii sidatan ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala soo waafajiyay maanta inaan xariga ka jarno qaybtii loogu talagalay taroomada ama emergency-ga ama gargaarka degdega ah inagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Iwaada oo runtii dhismaha quruxda badan waqtigiisa ku soo beegmay inuu ka hirgeliyay cisbitaalka Burco ee gobolka Togdheer waxaan kaloo mahad celinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyaduna u dhameystirtay qalabayntii iyo shaqaalihii u carbisnaa gargaarka degdega ah iyadana waan u mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa daryeel construction oo shirkadda iyaduna dhistay dhismahan quruxda badan ee loogu talagalay taroomada aad iyo aad baan cid kasta oo ka qayb qaadatay aan uga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa hay'adaha kale ee la midka ah Iwaada inay haddii Ilaahay ka dhigo ay ku dayan doonaan oo ay cisbitaalku waxyaalo badan ayaa runtii ka dhiman sida caadada inoo ahaydna ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan iskaashigeeni horumarineed arrimaha bulshada asaasiga ah aynu isu kaashan jirnay ayaan mar walba haddii Ilaahay ka dhigo aynu isu kaashan doonaa aad iyo aad baa mahadsantihiin annagana farxad bay noo tahay maanta inaan haddii Ilaahay ka dhigo ka soo qayb galo xariga ka jarno cid kastoo ka qayb qaadatana waan u mahad celinayaa hay'adda Iwaada wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta goobtan weyn ee quruxda badan leh aynu u diyaarino dadka dhaawacyada degdeg ay soo gaadhaan hadday noqoto kama iyo hadday noqotoba qaar si ula kaca loogu dhiftay oo markii hore goobo aad u ciriiriya ama aan sax ahayn lagu shaqayn jiray waxa marka ugu horeysana marka u mahadnaqayna waa ilaahay marka labaadna hay'adda ay naga qayb qaadatay ee Iwaada oo runtii gacan weyn ka geysatay dhismaha quruxda badan leh inta leeg wasaaradda ahaana anaguna aanu qalabeynay shaqaalihii u shaqaynayay dadka dhaawacyaduna ay diyaar ku yihiin 24 saacadoodba alxamdulillah waxaan uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ugu horeyso ururka khayriga ee Iwaada oo uu hogaaminayo Sheikh Aadan aad bay ugu mahadsan yihiin oo ahaa iska lahaa dhismahan hirgelinteeda marka bulshada waxaan leenahay insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan wax badan ka tari doonto baahiyaha inoo imanaya dhaawacyo hadday yihiin dagaalo dhaca
dhib kastoo qofka soo gaadha ama shilal ha ahaadaan dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay aad uga faa'iidaysan doonaan. dhakhtarku wada shaqayn ayuu la leeyahay bahda garsoorka tusaale ahaan oo kale siiba waliba tan la furay maadaama ay ku saabsan tahay dhaawacyada waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay'adan oo runtii khayriya oo wax badan gobolka ka qabatay taasna waa inuu mahad celinaynaa haddaanu nahay bahda garsoorka. waxaynu halkan xariga kaga jaraynaa dhismaha cusub ee loogu talagalay dhaawaca degdega ah. bulisaan aad baan ugu faraxsannahay awal way jirtay way yarayd meel yaro cidhiidhiya bay ahayd buliiska iyo may wada qaadaynin inamada neersanta waxaa dhici jirtay in mararka qaar 10 qof la soo geliyo oo u baahan in gargaar degdeg loo fuliyo goobta lagu shaqaynayna ay yarayd imika weynaga aragna waa goobta weyn ee baaxadda leh waxaan aad ugu mahad celinayaa hay'adda Ewaada oo suurto gelisay ama hirgelisay in dhismahan dhismo. hay'addan khayriga ah ee la yiraahdo Ewaada oo iyadana khayr Allah siiyo sidii loo sheegay gobolkan wax badan ka qabatay waa hawl caafimaad oo qurux badan oo inoo soo korodhay oo ku soo korodhay gobolkan Togdheer ama magaalada Burco gaar ahaan dhakhtarka weyn ee Burco hawl caafimaad oo inoo soo korodhay weeye waxay dabooli doontaa baahi jirtay bay inaga dabooli doontaa insha Allah waxaan halkan ka hambalyeeynaya cid kasta oo wax ka qabatay oo ka soo shaqaysay waa qayb inaga kafeyn doonta hawl fara badan oo halkan ay qaban jirtay oo meelo badan oo kale loo tigi jiray waxaan u mahad celinaynaa shirkadda organizationka Ewaada oo mashruuca fuliyay. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.